محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكالمي ولاالكا كليك سي اي ودير جلسو وقصوين كيني تحناها سويالك سوبنا صلى الله عليه وسلم قيبتي tabsaaridii iyo nuujintii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dunida yimid isagoo agoon ah aabii wuxuu dhintay isagoo uurka ku jira balse Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka badbaadiyay dareenka iyo baahida ay agoonnimada leedahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo arrinka tilmaamay wuxuu yiri alam yajidka yatiiman fa'awa miyuusan ku helin eebaha adigoo agoon ah oo uusan kugu dhaweynin. bilowgii noloshiisa hooyadii ayaa korisay. xilliga dhaqanka carabtu wuxuu ahaa in carruurta magaalada ku dhalata baadiyaha lagu soo nuujiyo si ay u adkaadaan hawo nadiif ahna ay ugu koraan. waxaa magaalada Maka yimid xilligii uu dhashay suubanaha sallallahu alayhi wasallam haweenay u ilma dhashay qoyska reer Bani Sacad. dumarkaas waxay doonayeen ilmo ay nuujiyaan oo lacag lagu siiyo maadaama ilma nuujinta lacag lagu qaadan jiray. waxay dumarku doorbidi jireen inay helaan ilmo aan agoon ahayn. taariikhahanadu waxay sheegeen in Xaliima bintu Abi Du'ayb as-Sacdiya ay suubanaha qaadatay kadib markii ay weyday ilmo aaba leh oo ay nuujiso. waxay la tashatay Xaliimatu Sacdiya saygeeda Xaaris. waxay ku tiri intaan anigoo faramaran iska noqon lahaa agoonka reer Bani Abdul Muttalib ayaan iska qaadan waaba intaasoo uu naanfacee. Xaarisna uu la qaatay talada xaaskiisa Xaliimatu Sacdiya.